بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bacda salaan waxaan arkayaa dad meelaha uu ka booqayo qaylinayo oo Twitterada ka caytamaya. Ergaabo la isku haysto annaga le. Horta ergaabo xaqiiqda marka laga hadlayo waxaan u maleynayaa dadkan ka sheekeynaya ergaabo oo qabiilkana digay iyo qabiilkana digali. Wadada ergaabo weligood baa u dhalan baan maleynaya. meelaha kale iska joogaan aad u qoon. ergaabo sida xaqiiqada horta afar qabiil baa wada diga. afar qolo wada diga. maxay ahayd majority ahaan yani marka laga hadlayo. laba waa harti. haddaan si kala saaro waa ogtihiin inta qabiilada jilibada kala deedeeg waa la garanaya gahayl iyo mid yihiin. laakiin majority waxa deega warsagel iyo dhulbaanta. iyo gaslabe. marka dadkan sheegaya qabiil hebel baa dilay kana deega. warsagel inta badan horta way degan. qola kasta jilib kasta waxa ka deega maxay dad baa ka degan. maaha inaan tiraahdo reer hebel baa deega. aniga haddaan caalamka minka isbedelay warsageli waa maxay ahayd inta badan way degaan oo isla waa dega laftigiisa oo isla waa laga tagay waxaan maqlayo dad leedno xumar iyo bahaw isla waa dega wadadan kala oqon baan maray aad u garanay magaalada jilba badan qolba maxay ahayd jilba badan baa horta warsageli ka dega jibriil saciid baa dega axmed cumar baa dega maxay ahayd reer garaad baa dega oo isla baa dega waxa wasoo laftigeedu waxa ka digan in ka saan wax badan kama arkin ba bii door ba digta oo dadka qaar ka digan dadka reer qadiimi baan garanaya digi jir marka dadkan uu laba jilib ku soo koobaya oo leh intaas aad digta wasagay waxay ahayd dhubantana ma digo wadada aan kala aqoonin baan maleynaya dhubantana la yaxmid meel kale ma badigan sanag meelaan hayn ba badigan baadiyaha iyo meel walba ayaa ku taxan jidariyaga degan magaalada inta hoose xagga hoosta ee dadka degan daaroodka aad bay ugu badan yihiin dhubanta nala yaxmed marka dadan kala garanay ba hadlayo dhubanta wax kuma leeyahay waxa wax looga jeedo ma yaqaanayno ninkan Soomaaliyeed waa ogyahay dadka degan meesha degan ahaan u leh oo asalkii hore waxa ay soo degan kuma hadlayo dadka ooyaashood ku aasan yihiin dadkii hore ah oo weligood degan ku ah ergaabo dadkii yaqaaneen baa yaqaan marka dhubanta horta anigu ma aqaan meel kala qaadeen waa kuwa isgarabsan lahaydeen dhubanta oo maxay ahayd isku deegaanka ahayd oo isku danta ahaydeen dad dhubanta hadalaya waan arkaya dhubanta sida tan dhubanta horta way wareerteen dadkiina waa bay isu fiirsada aga dhulka dhiga inagu daniyo ma jeeteen soo gaadhnay shaqaan isku balin horeen soo madahan jirin shaqo hadda waa maqlaya dad baa waxba socday waxa dagaal ku jiray dagaaladii horena waa la ogaayo sabayna noqon reeraha waxa dantu ka dhaxaysa waxa weey dadkooda degan dhulbahante warsangeli iyo gahayli haday dhulkooda nabad ku doonayaan iyo dagaal ku doonanayaan laakiin reer jilbaan weliga maqal warsangeli oo ku arkay ergaabo baa imika la leeyahay reer hebel baa degay kana degay xamaqa idal maxamed baa degay reer hebel kale maxamed iyo reer kale kama baqaan maxamed anu reer ergaabo haddaan la digin waa kama warhaye marka waxaan leeyahay maxay ahayd dadkii dhulka aan kala aqoon oo kala garanayna ummadda ilaahay amaan siiyo dhubanta dhulka maxay ahayd inta badan iyaga degan ergaabo intaan warsageli la gaarin ergaabo dadka iyaga ku teedan meel kasta baadiye meel tuulooyin meel walba degan magaaladana aad ba guriyoodu ugu badan yihiin naale axmed oo dhan baa degan marka waxaan leeyahay arinta laga fiirsto wixii wada degan oo isku degan waa isku badan maxay isku dan deenna sida muuqata maxay ahayd waa baan aragnaa wax sabaynayo inuu bay naga dulbooday oo reerihu gudbay heshiis kasta ku dhici kara oo dhacay haddaan dhubanta la heshiin warsangeli kale islu la heshiisin kara wax macquul ah waxa dhici kara waxaas maayo wax dhacaya toon maskaxda laga shaqeeyay baan leeyahay dhulbahanta iyo warsageli oo socdo haddaan isaaq la heshiin wax heshiis oo dhacaya ma jirto mana dhici karo marka waxaan leeyahay warsageli
jidka toosan ku soo noqda waa khaldantihiin deenina danteena maaha innaga hadday dhulbaantay denis hayaan maxay ahayd dhulbaanta la xafiiltamayana dee waxay ahayd inay idinku dhexdhexaadisaan heshiisiisaan innaguna dhulbaantan isku dannahay nalay axmedka halka diga iskaba daaya bal dhulbaanta kale khaatimay leeyihiin laascaanood bay leeyihin laascaanood maxaa siiyay dad baa jira ka awood reer ceegaabaah nalay axmed xagga jiraan xagga geysin dib isugu fiirsada baan leeyahay waxaas sheeko maaha ama khaatimo ha samaysaneen waxay doonaan ha samaysteen dadkaasi dhulka degaan bay ku leeyihiin maxay ahaydey aad bayna u degaan ceergaabo tuulooyin dee badan ay leeyihiin waaba jiraan ilaa inta wasagelka u dhaha arkina biyo guduud bay degaan maxay ahaydey jiyeeli bay degaan maxay ahaydey orbogoos bay degaan maba kala qaqani waanba ceergaabo saa xagga u dhaafin laakiin dee dhul badan bay degan yihiin annaka caana kasoo cabi jireen wadiye ceergaabiya hareeraheeda ceergaabiya aageeda naalay axmed ciidanahay ma digto marka waxaan leeyahay isu fiirsada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu